faa'iidaysato haddii aad rabto inaad suuqa ka faa'iidaysato please waxaa muhiim ah inaad ka faa'iidaysan karto waxa loo yaqaano maxaan ku idhahdaa practice accountka practice account mar walba ood samayso waa mar walba oo aad maxaan ku idhahdayey aad u sii dhawaatay inaad trade samayso cashirkeenii u dambeeyey wuxuu ka hadlayay ama arrintiisu ahaa haddii aan u laabto si aan recap idinku sameeyo ama idinku celiyo mawduucii hore wuxuu ahaa waxa loo yaqaano chart analysis ama success rate wuxuu u dhigmo waxa kasii horeeya cashirka wax la yidhahdo entry iyo exit point cashirada siday u kala sii horeeyaan inaad usoo daawatana waa muhiim haddii aad iminka la qaadaysana waxa muhiim ah inaad cashiradii hore ku noqoto si aad u fahmi karto waxyaabahan aan kala faa'iidaysan doono sida aynu isla ognahayba success rate waxaynu ku qiimeynay inaanu noqon boqolkiiba conton uu noqdo boqolkiiba 85 mid kasta oo aad galaysan ITM-ka boqolkiiba 80 inuu noqdo OTM-kaaguna 20 sababta 20 iyo OTM-ka iyo ITM-ka ay u kala noqonayaan horaan idinku sheegay adoo analysis sax ku socdo waxan binary sideedaba forex market iyo binary waxaan oo dhan isku wada jiraan jiha kaliya suuqa u jeeda jihada u jeeda si aad u ogaatana waxa muhiim ah inaad khasaaro u soo diyaar garowdo marka aad khasaaro u soo diyaar garoobaysana lacagta aad dhigaysaa ha noqoto lacag aad afford garayn karayso ama lacag ma aragteenay aad awoodo in ay ka baxdo marka horeysa waa marka trade bilaabi doono maanta laakiin trade-ka anigu kuguma recommend karayna ama kuguma talinayo wax investment inaad geliso adigoo aan khibrad yeelan ama aadan baran haddii aad ku jirtay bil IQ option iyo wax ka badan waxa muhiim ah inaad ku jirto in ka badan 6 bilood si aad u fahanto horta waxaan macnaheedu yahay waxaan khasaaro ma loo soo diyaar garooba ma jiro qof boqolkiiba boqol guuleysta waa maya ma jiro ninka ugu trader-ka fiican ma guuleysto boqolkiiba 80 wuxuu guuleystaa boqolkiiba 95 anigu imsaan guuleystaa waa idin sheegay 85 86 meelaha 87 so loss baa mar walba jira laakiin waxa muhiim ah faa'iidada aad maanta la hooyanaysaa intay tahay maanta dukaan aad furato khasaaro u jiraayo alaabba kugu dhici karta waxba ku sameyn karna business-kana waa sidaa kale walow ka duwan yahay technology ku xidhnay maanta waanu ka fudud yahay hadaad si u raacdo laakiin uu ka adag yahay haddii dhaqaalahaaga ay noqoto waa inaad la jeclo u yeelato dhaqaalahaaga muhiim noqonaya so topiga maanta wuxuu ka hadlayaa risk and reward maxay yihiin risk and reward waxay yihiin basically inaan fahno risk and reward waxa weeye haddii aad haysato $100 miyaad riski garayn kartaa miyaad se maxaa la yidhaahdaa aad gelin kartaa $100 miyaad gelin kartaa oo riski miyaad ku gali kartaa miyaad ku gali kartaa si aad u hesho 80% ama $80 horaan idinku soo sheegay suuqani waxaan u malaynayaa qof shaashadiisu furan tahay inuu jiro fadlan ha layga xidho shaashada okay waxaad yeelaysaan 80 si aad u hesho 100 miyaad risk garayn kartaa ha waad riski garayn kartaa waxaad u risk garayn kartaa weliba waad samaynaysaa haddii maanta aad $1 gasho maxaan idin sheegay suuqa faa'iidadiisa ku xidhmi doonto oo ah boqolkiiba 80 hadduu yahay inaad helayso $1.80 halka dollar muxuu yahay halkaagii adigu halkaasi suuqa aad dhigatay faa'iidadeeda waa 8 senti haddii aad $100 dhigto ama $10 dhigto $8 baa ku dheer haddii aad $100 dhigto $80 baa ku dheer ay ku xidhan tahay sababtuna suuqa halka uu marayo okay haddaba waxa lagu yiri miyaad ku riski garayn lahayd waxa loo yaqaano $100 si aad $1 u gasho oo aad u hesho haddii suuqa faa'iido kale faa'iidadiisu ay tahay conton adiguna aad 100 invest garaynayso faa'iidadaad invest garaynaysaa in ay tahay lacagtaad invest garaysay halfkeed anigu haba gelin baa ku dhahaa suuqu mar buu noqdaa 50% faa'iidadiisu markaasoo kale haba gelin anigu 75 hadduu ka hooseeyo ma trade garay because of lacagtaan gelinayay waa lacag halis badan aan ku galayo kalsooni waxaan rabaa faa'iido go'an soo faa'iidadaan rabaa waa inay ii badataa soo marketka waa iska sugayaa inta uu ii kacayo saacada ma 2 saac oo kale ku soo noqon karaa walow habeenkii ma marka qaar uu isbedelo oo dhinac kale u socdo waxaan idin sheegay xaqan inaanu risk iyo reward jiro riskigu hadduu yahay wax badan hataa lacag badan helayso risk taker waad noqon kartaa waa practice adigoo samaynaya realkana waa same laakiin practice baynu hadda wadnaa adiga oo isticmaalaya waxa loo yaqaano risk and reward waxaad eegtaa waxaanaad riski garaynaysa ma u qalmaa inaad riski garaynayso ha haddii $10 aad riski garaynayso uu ku soo xareynayo $7 dabcan waad galaysaa haddii uu ku soo xareynayo $8 dabcan waad gali
haddii laakiin uu kuu soo xareynayo $5 $10 aad dhigtay dee waxaad faa'iiday waa labada meelood marka loo qaybiyo qayb adiga oo halisteedii galay oo lacagtaada khasaari lahaa horena waxaad iigu sheegay traderka markaad gasho adigu ma go'aamisid lacagtaadaasi traderka intuu dhammaanaya ku geey kartaa okay risk and reward haddii aan example idinka siiyo lacagta aan galayahay maxay tahay waxay tahay lacagta aan galayahay aynu isla eegno waxaan eegaynaa hadda waxa loo yaqaano risk and reward okay hadda maxaad halkaa ku aragtaan boqolkiiba 4.8 yahay miyaan gali karaa mise ma gali karo طبعا waan galayaa 4.8 buu maraya $10 baan la soo baxaya account-kayga kala soo baxaya suuqaan analyze gareynaya walow suuqa position aan laga gala aanu jirin laakiin hadda example baan idin sheegaya waxaan idin sheegaya time-ka iyo waxaan exit iyo entry point-kiina horaan idin ku soo sheegay waxaan muhiim ah inaad ilaashataan time-ka iyo entry and exit points codadkaygana inaad si fiican u maqlaysaan baan rajaynayaa maadaama oo waqtiga aan koobi doono dadka YouTube-ka ka daawan doonana inaad ku celceshataan videos-ka si aad u fahantaan okay hadda halkaasaan $10 dhigtay $10 baan dhigtay riski baan ku galay $10 maxaa riski gareeyay waxaa riski gareeyay $8 inaan helo $8 si aan u helo maxaan markaa doonayaa waa in aan helaa lacag ah $8 si aan u helo 10kaygii markaa khasaaraha miyaan u bareeri karaa haa waan u bareeri karaa haddii halkani ay tahay waxa loo yaqaano maxaan ku raahdaa $5 miyaad riski gareynaysaa waa maya ma riski gareynaysid sababaadan u riski gareynin lacagtaad faa'iidaysaa way ka yartahay lacagtii loogu talagalay inaad faa'iido dabcan waad ilaashanaysaa lacagtaada si aad lacagtaada u ilaashato waa inaad lacagtaad riski gareynayso waxaan idiin soo sheegay hadda inuu riskigu yahay sababta ugu muhiimsan suuqa lagu galo riski si aad u gasho waa inaad riskiga waxaad lacagtaad riski gareynaysaa ay lacag marka hore aad awooddo inaad hesho ay tahay lacag marka labaad lacag aad maaragtay u qalanto lacagtan aad faa'iidayso so maxaa idin sheegay lacagtaad faa'iidaysaa hadday u qalanto inaad faa'iido dee waad u dhiman dabcan waxa weeyaan faa'iido badan baa sugaya waan galayaa analyzing ma ku analyze gareyn suuqii sidaan idin sheegay talooyinkii hore iyo cashiradii hore aad isticmaalaysaan ma lay maqlayaa hadda si fiican ma loo maqlayaa ma la arkayaa videogaan idiin soo dhigay okay daawada hadda videoga halka ugu dambeeyo wuxuu idin sheegay hadda $10 oo investment inaan galay maxaad aragtaan hadda $10 aan invest gareeyay waxa aad aragtaan $10 aan invest gareeyay in $8 aan helay $8 markaan helayay inta aan waxoo dhan la soo baxin waxaan qiimaystay $10 faa'iidada aad u dhimanaysaa ee lacagta u khasaaranaysaa ma u qalantaa mise uma qalanto dabcan waa u qalantahay waa 8 boqolkiiba 84 bay maraysaa oo u dhiganta 8 senti $8.40 so $8.40 ma u qalantaa inaad $10 bixiyo oo u qalantaa waan dhigay faa'iido haddaan khasaaro runtii waxaad ogaataa business weeye waxaani investmentkaaga dambe hagaaji ka fiirso way khasaaraysaa waan idin sheegay waxa jiri doona waxa loo yaqaano risk iyo rewardka waxa ka horreeya cashirkii ka horreeyay oo ahaa waxa loo yaqaano muxuu ahaa chart analysis oo ahaa waxaanaad horta marka hore aad galayso suuqa intaadan gelin waxyaabaha u baahan inaad ka taxadirto okay aan ku soo noqdo marka mawduuca risk and reward haddii $1 aad helayso $100 miyaad u dhigi maya dee $1 baad $100 u khasaarinaysaa caqligii ugu dambeeyey ee business gala ayaad noqonaysaa ee ugu xumaada waxa weeye business markaad galayso waxa aad lacagta aad galayso businessku ha noqoto lacag maxaan ku dhahaa u qalanta waxaan aad galayso marka adigu maanta inaad investment samaysato rabto lacagta lagu sheegay investment ka waad ku helaysaa lagu dhaado ha noqoto lacag u qalanta lacagta aad helayso okay sidee baa risk iyo reward loo maaragtay isticmaali karaa marka la trade gareynayo waa qoraalkaygan halka hoose xigta risk iyo reward sidee baan u isticmaali karaa markaan trade gareynayo hore maxaa idinku soo sheegay entry iyo exit point inay jiraan entrygu inuu muhiim yahay markaad galaysa inuu suuqu meel fiican taagan yahay si exit point-kaagii lacagtu u noqoto ITM iyo OTM videoyadii ka horreeyay baa idinku soo sheegay so waxaan forex ma haddaan qabanayna binary and digital baan qabanaynaa waxaan idin faa'iideynayaa waa sidii aad uga ganacsan lahayd suuq walba adduunkan jira hadduu yahay Wall Street hadduu yahay binary and digital hadduu yahay cryptocurrencies haddii aad rabto forex inaad gaar uga ganacsato waxaan idinku recommend gareynayaa nin ka mid ah asxaab dad aan ku kalsoonahay ama aan rabo inaad ka faa'iidaysataan xaggan binary-ga waxaanu dhiganaynaa shuruuc u taagan policy-ga aynu ku trade gareyn doono haddii aad rabto inaad ila trade gareyso okay sidee loo isticmaali karaa simple waxaad u isticmaali kartaa
wax aad afford garayn karayso unbaad gelinaysaa marka lacagta sidee baad risk iyo reward horta u isticmaalaysaa risk iyo reward waxaad u isticmaalaysaa marka aad practice badan soo samayso ITM-kii aqoontan kuu soo kordhiyey OTM-yaf aad fahanto ku celceshato ila practice garayso aniga eed igu celceshato macnaha videoska aad ku celceshato daawashooyinkooda waxaad samaynaysaa lacag aad afford garayn karaysaa ayaad dhiganaysaa $10 baad la soo gashay platformka soo lacagta ugu yareed afford garayn karaysaa waa imse $1 baad gali waxaad galaysaa $1 waa markaad risk iyo reward samayso maxaad haysataa 10 chances baad haysataa si aad maaragtay trade-kaaga u hagaajiso soo hal baad u gali kartaa soo risk iyo reward lacagaad mar walba awooddo inaad lose garayso ood bixin karto ayaad bixinaysaa maalintii shaah baad ku cabtaa $10 waxba maaha soo $10 haddii aad $100 ku shubato $5 waad u trade garayn karaysaa lacagaad mar walba afford garayn karayso ayaad gelinaysaa lacagtaasi maxay kaa anfacaysaa waxay ka anfacaysaa maskaxiyan inaadan khasaarin hanti adigoo ka fikiraya hanti badan waa in aad ku dadaashaa sidaad lacagaad khasaari kartid ood ugu bareedho riski taker aad tahay aad la timaado waxan waa business markaad business galaysana de hantidaadoo dhan hadhigina kala dhigo oo barbaruga okay make small profits si aad u minimize garayso riskigaaga small profit yar iska samee si aad u yarayso khasaarahaaga iyo halisahaaga ha furin martingale deals waan idin fahamsiin doonaa martingale deals waxa weeye waxa loo yaqaano dhiilal badan oo ah imika offerkaasa socday gal positionkan baa furan positionkan gal ha gali lacag keliya soo furo euro USD maanta ha kaa badato ha gal euro USD samee okay haddii aad riski garayso lacag $100 si aad u hesho $200 waa perfect khasaare kuma jirtid haddii aad riski garayso waxa loo yaqaano $100 si aad u hesho $50 waan idiin sheegay anu ma galo waa taladayda ah gelina laakiin it's not bad ma xuma qofku faa'iido sugaya walow faa'iido sugayana ma khasaarin laakiin bal ka waran haddii aad riski garayso $100 si aad $5 hesho xitaa $5 kuma farxaysid iska daa ha u dhawaanin lacagtaada intaad haysato ay ammaano ku tahay so $5 gal si aad $4 baro hesho suuqa faa'iidadiisa sug waxa waali ah marka lagu yiraahdo inaad riski garayso $40 si aad 80 cent u hesho waa yani halkii ugu dambeysay khasaara iyo waxaan intaad ka tagtay ayaad meesha u timid khamaar meeshan ayaad khamaar u timid intaad khasaara iyo wax walba ka tagtay marka waxa muhiim ah inaad ilaaliso riskigaaga risk and reward waa muhiim ashirkan ilaashada ku ceshada risk and reward business kan hadii aad rabto inaad ka ganacsato risk and reward ilaali risk and reward markaad ilaaliso wax walba waad fahmaysaa so trendkii iyo wixii aan idiin sheegay ayaan idin tusaya hadda waxaan idin tusaya example labaad risk and reward kaan idin tusaya adigoo khasaari kara oo heli kara yaan xaggan waxaan galayaa lacag khasaari karo iyadoo aan gelinayo hadda 1 milyan baa igu jirta practice account-kaygii 10,000 baan ka bilaabay 1 milyan baan gaarsiin maxaan markaan awood u leeyahay inaan galo waxaan awood u leeyahay waxaan khasaari karaa $1,000 baan maanta khasaari karaa $1,000 baan khasaari karaa waayo 1 milyan baan haystaa $1,000 ee suuqa la soo galay maanta haddaan khasaaro berri baan lacag ka faa'iido badan sugaya laakiin $1,000 haddaan helo for example 1,000 baan iska dhigay positionkii aanan ka fiirsan lacagtii iyo wixii oo dhan ayaan iska dhigay xagee ku dambaysa markaa waxay ku dambaynaysaa wuu socdaa weli ma soo dhamaysan circle-kii so 1,000kaasi kor buu kuugu bixi karaa halistiisu leeyahay 2 goor baa ku dhacay 1,000kii never mind tusaale waxaan tusayaa 2,000 baa galay never mind ma dhamaysan circle-kii kor inuu noqdo suuqaas waa laga yaabaa lacagtaan geliyayna waa 1,000 markaan riski garaynaya lacagtaasi maxaan ku xisaabtamay risk and reward baan ku xisaabtamaya 1,000 haddaan iminka lose gareeyo anu waxaan ahay nin 1 milyan u taalo practice account oo 1,000 ma walwalayo so haddii aad adigu 100 maanta practice account-kaaga dhigato 100kaasi sidee buu kuugu nabad galayaa sidee buuna 100kaasi lacag fiican oo trade kuugu samaynayaa fadlan iska xira kaamirooyinkiina aniga un baa meeshan videoga bixinaya sidee buu kuugu samaynayaa wuxuu kuugu samaynayaa hadda 1,000 baan trade gareeyay 1,000kaygii 2,000 baan trade gareeyay 2,000 faa'iido imise ii maraysa 2,000 waxay maraysaa 1,680 boqolkiiba 80 de waa faa'iiday marka anigu ma kama walwalayo khasaare so riskigaygii waa waxaan ka jeeb qaadanayaa jeebka iyo anigu xagga aan ka dagaalami karo oo ah marka hore lacagta aan haysto in awoodayo haddii aan khasaare inaan ka walwalayna beri trade labaad inaan imaadaan u soo diyaar garoobayo haddii laakiin aadan waxaayo dhan u soo awoodayn ama aadan karin waxa loo yaqaano risk and reward
waxa muhiim ah in aad iska joojiso risk and rewardka khasaaruhu meesha kaaga imanayo adiga oo mar walba ku dadaalaya waxa loo yaqaano maxaan ku raahdaa risk and reward oo ah inaad ilaaliso dabeecadda iyo dhaqanka uu leeyahay businesskani waxaan filayaa 15 minutes baan ugu talagalay maanta tusaalayaasha inaan idila wadaago 15 minutekiina waa inaga dhammaadeen laakiin waxaan samaynayaa hal trade oo kale oo risk and reward ku saabsan halkaa trade wuxuu noqonayaa sida aan hore idinku soo sheegay markaad galayso suuqa position qurux badan baa laga galaa si aad position qurux badan uga gasho hadda $100 baan for example kala soo baxay account-kayga $100 baan damcay inaan lacag ku cuno lacagtaasi aan ugu cuno waxaan samaynayaa hadda app baan u galayaa app intaanan u gelin time waan kororsanaya haddaan app u galayo haddaan sell u galayana waan kororsanaya suuqaasi halkuu socdaa sell buu socdaa laakiin maxaa is soo celinaya labada candle bay is soo celinay inuu up tago iyo inuu down tago buu isku hayaa laakiin candle signals wax la yiraahdo iyo waxa jiri doona waxa uu fahmi doono mar walba time-ka waad kordhisan kartaa aad investment-ka gashanayso adigoo ka raacaya jeebkaaga lacagta aad lose garaynayso ama aad ku xisaabtamayso suuqood meel qurux badan ka fuulayso maxaan ku idin tilmaamay suuqu inuu leeyahay waxyaabo resistance iyo support zone la yiraahdo hadda resistance iyo support is haya xaggan hoos inuu igu noqdo rabaa inaan $100 lose gareeyo waa dhacdo laakiin waxaan ka tixraacayaa inaan win gareeyo anigoo ku xisaabtami doona waxa aan hadhow toole lacagtaasi waxay ka gashay dirow mana khasaarin mana faa'iidin waayo suuqa intuu kor u soo kacay baa waqti ku qaadatay lacagtii la kala iibsanayay buy iyo sell baa dheeraaday soo lacagteedii buu soo celiyay $100 wax faa'iido amaan helin lacagtaydiina ma khasaarin ee way soo noqotay waa waxa u badan mar walba galo abkan doonayay buu hadda iga dhaqaaqay laakiin mar raba inaan galo waa inaan time-ka kordhiyaa okay ka soo noqo time-kii 100 oo abagal inuu iscelinayo aad aragtaa suuqii hadduu sell-kaasi sareeyo ama aad aragto candle-kaas oo sareeyo hoos u soo aadan inuu sell celiyo suuqa ayuu rabaa okay time has timed out biguri request-kaaga so option cusub baan soo furanayaa si aan maaragtay inay u dayo ama aan u eego xagga riskigayga iyo rewardkayga ay kala mari karaan okay halkan aan yidhi xaggan aan buy kaga dhuftay maxaan idiin sheegay meesha marka laga galayo positionka aad galaysaa hoostan ha noqdo si position qurux badan aad u gasho exit entry point-kaaguna ha noqdaan kuwo isverify garaynaya maxaa dhacay hadda kan indicator-kayga wuxuu sheegayaa inuu kii bluegii kor aaday kacasna uu hoos joogo maxaa markaa sareynaya kii bluega buy buu taagan yahay ka kalena sell buu taagan yahay so sell buu awoodda u haystaa inuu soo celiyo waa dhacdo laakiin sell buu awoodda u badan u haystaa indicator-kaasi waad arkaysaan hoos haddaad aragtaan ama aad u fiirsato hoos buu ka soo cadaadinayaa kor buuna u hayaa si uu kor ugu qabto wuxuu rabaa hadda indicator-ka waxaad aragtaa xaggaa hoosta waxaad aragtaa inuu kor u socdo si uu hoos u tago si uu hoos u tago indicator-kaasi halkuu u socdaa wuxuu u socdaa up soconaha kan investment u galay up ayaan u galay 10 second baa time-kaygii ka hadhay anigoo risk iyo reward ku xisaabtamaya $100 baan geliyay si aan $80 ugu xisaabtamo 80kaygii dollarna maxaan ku helay macaash ayaan ku helay risk and reward maanta muhiimadda cashirka aan leenahay waa risk and reward inaynu helno risk si aynu u helno reward riskigaan galayna inuu noqdo mid u qalma suuqan si aan uga ganacsano oon u helno suuqan waa inuu noqdaa mid u qalma inaynu helno si aan reward u helno so hadda waxaan galay lacagta $100 $84 oo u qalantay inaan riski gareeyo ayaan so marnaba khamaar meeshan ma jiro hadii khamaar doonaysaay way jiraan waxyaabo website game lagu ciyaaro lagu khamaaro laakiin walaalahay meeshan ganacsi dhab ah hadii aad rabto risk and reward iyo cashiradan aan idiin sheego ka faa'iidaysta insha Allah waxaan filayaa session-kayga caawa intaas uu ku eegay wax su'aala inta aanan recording-ka xirin cidii damacsan inay weydiiso way weydiin kartaa anigoo idin jawaabi doona su'aalahan idinka jawaabi doona walow time-kaygu dhiman oo maaragtay dhamaaday waxaan rajaynayaa videoska in lagu celceshado YouTube-ka laga heli doono laguna celceshado si looga faa'iidaysto cashirada dambe soo socda recording-ka waan xirayaa wixii intaa ka dambeeyay su'aalahan idinka jawaabaya insha Allah